halkani waa magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. Shacabka iyo guud ahaan bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Buuhoodle ee caasimadda gobolka Cayn ayaa si weyn uga soo horjeestay xariga Korneyl Yuusuf Cabdi Cali Korneyl Tuke oo ay sheegeen in korneylku uu xaqdarro ugu xidhan yahay dad budhcada oo xasuuqyo badan ka geystay guud ahaan gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. Odayaasha waxgaradka, saraakiisha ciidanka iyo guud ahaan bulshada reer Buuhoodle ayaa iyagu waxa ay wacad ku mareen in haddii korneylka maxkamadda been abuurka laga deyn waayo ay tallaabo sharci ah ay qaadayaan. waxaan maanta xafladan isugu nimid oo lagaga hadlayaa waa arrintan dadka dhammaantiis deegaamadan ama dadka Soomaaliyeed ama dadka Islaamka wax kala garanaya dhibaysa. arrintan sarkaalkan waa nin la garanayo, hadduu waqooyi joogana waa la yaqaanaa, halka uu ka soo shaqeeyey gudoomiye Cumar Badhiyar baa isku xilahay. waxaa sarkaal Soomaaliyeed maxkamadda Mareykanka. waxaan leeyahay horta marka hore waxaad sheegateen inaad tihiin cadaaliyiin, garsoor ilaaliya, dastuur aad leedihiin Mareykanka ilaalinaya, dadkana ku kala saara. laakiin waxaa cad in cid gaara aad u shaqaynaysaan, maqalkoodana qaadanaysaan, dulmina uu ku xidhan yahay. waxaan dareemaynaa in loo adeegsaday dhaqaalo sida looyarada iyo waxaan jirin oo ah abuuritaan laga abuuranayo been sida xasuuqa ama dagaal aan sharci ku fadhiin oo aan dowladeysnayn. waxaan caddaynaynaa arrintan waxba ka jir. waxaan ka codsanaynaa dowladda Mareykanka iyo maxkamadeeda hadday bari dhici lahayd iyo hadday ka dambayn lahaydba in la joojiyo, dambiile hadduu noqdana la hubiyo oo sifo sharciya oo dastuuriya loo maro, hadduusan dambiile ahayna sifo sharciya loo maro, laakiin aan la taageerin kuwa ku tumanaya sharciga iyo dastuurka. waxaana caddaynaysaa xasuuqa iyo haldoorka ka soconaya leynta laascaanood oo ay gacanta ku hayaan oo aan gobollada kale Soomaaliyeed ka jir. waxaana caddaynaynaa hadday kuwaasi dembi laayaan inaan tukana dembi lahayn. beesha Isaaq mas-uuliyiintooda iyo dhaqankooda waxaan nahay dad wada dhashay, darisa, isku dhaqana, aan marnaba kala maqnaanayn. haddaad ku qanacdaan intay maamulkiinu sidan u shaqeeyo iyo dad faamilkiinnii inay nabadi sii jirto, horaana looga helay, laakiin waxaan rajaynaynaa inaan nalaga helin hadda wax isbedel imaanin haddii alla idmo. ilaahay baa mahad leh. waxaynu doonaynaa inaynu shucuurteenna halkan ku muujinno ku saabsan korneylka ku xidhan Maraykan ee ay dacweeyeen maamulka Somaliland iyo shacabkiisuba. waxaanu rumaysannahay inuu ku xidhan yahay si dulmi ah, qaraabo loo qaraabo ahaan qabiil ahaan loo dilayo, loona xidhayo. Soomaaliduna amaah bay kala qaadataa, ma kala adkaato. korneylka wuxuu ka mid ahaa ciidamadii Soomaaliya, jeneraaladoodii baa jooga, taliyayaashoodii ciidamadaa jooga, waxaa jooga wasiirkii gaashaandhigga ee Soomaaliya. meel walba way joogaan. waxa loo eryanayo ee meel kasta oo uu maro loo eryanayaa waa nidaam qabiil oo loo doonayo in loogu bahdilo laguna dilo. waxaan ballan qaadaynaa in haddii aan loo sii dayn si degdega, Soomaalidu deyn bay kala qaadataa, ood baanu isugu xignaa, waa isku dhownahay. maalin walba waxay naga dilaan 10 ama 5 ama 6 haldoorka iyagii oo dhan waa dhameeyeen. iminkana kii dabadaha joogay bay u dhigteen. waxaan ballan qaadaynaa in aanu Tuke u xidhnaan doonin ama u dhiman doonin. hadduu u dhintana wax badan oo dambe oo raada uu reebi doono, loo dhiman doono, loo ugaadhsan doono, loo layn doono, ama maamul ha noqoto ama shacab ha noqoto. cidda haysata waanu naqaanaa iyo qabiilkay tahay iyo cidda ay tahayba waanu garanaynaa. Tuke cidla ku bixi maayo. ninkiisa amaah u sii qaadanayo u sii qaado. haddii aanay meesha Soomaalinimo iyo Islaamnimo iyo dadnimo iyo derisnimo midna aan la xeerinahayn, annaguna waxaanu xeerin doonaa ma jirto. dowladda Mareykanka ee haysata Tuke haysatee lagu xidhay, waxaanu u sheegaynaa dhaqanka iyaga ma taqaaniin. waxa dalka iyaga ka dhacayna wax badan baa ka dhacay
cid kasta oo dhibaato ka geysatay way jirtaa waana joogtaa haddadaasa annaga nala laaya dadkayaga laascaanood lagu laaya oo buuhoodla lagu laaya oo xudun lagu laaya oo meel kasta lagu laaya waxaa loo sheeganayaa si qabiil baa loo raadsanayaa si sharci oo caalamiya maaha haddii aanay dowladda maraykanku rabin inay soomaaliya fadqalallo ka dhex abuurto oo ay aanaysi wado oo ay dhibaato ka fuliso waxaan leenahay la sii daaya ninka xaqdarraa lagu haystaa tuke waxaa lagu haystaa waa nin daarooda waa nin hartiya waa nin dhulbahantaa waa nin reer waqooyiya intaa waxaan hayna lagu haystaa ma jirto waxaa meesha taalla 30 sano iyo ka hor kuwii dembiyada gelayey ee dhiigga faraha kula jiray baaxat al-aan mas-uuliyiin u ah maamulkaas Somaliland iyo SNM ee meesha ka arrimiya Axmed Maxamed Siiraanyo Maxamed Axmed Kaahin Muuse Biixi Cabdi Salmaan Maxamuud Aadan Salmaan Gaal Nuux Ismaaciil Taani guddigood waa dadkii 30 sano iyo ka hor baxa suuqa iyo waxa weeye jana sayrka ka geystay deegaanada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan deegaanada SSC waxaa ragga iyagii la fihiisi yaalaan kala shaaliya meegaagli hagogane oo awal la aasino geel u cunaa waxaa la marsiiyay kaare iyo beebe loogu dowladeenay oo maamul sheeganayay iyagoo qabiil taageero dibadda ka riixayay kuwii nooc ahaa baa ku dhex nool Somaliland iyo rees xisaaq inay maanta cid kale wax u xambaariyaan arrintaasi waxna siisan karna ma haddii aad taa samayseenna nin baa laga sheegay haddii raggu dagaalamo nin walba meeshuu wax ku ogyahay buu aadaya kuwaasaa maxkamad lala koraya kuwaasaa xasuuq geysanaynaa beelaha la isu layn doonaa nabadgelyada waqooyiga ka jirta waxay ku dambayn doontaa colaad ilaa iyo halkaa iyo ilaa iyo hargeysana adeero reer qol mooyaane reer dega waa la waayi doonaa Cornel Tuke anuu si fiican baan u aqaanaa Cornel Tuke waxaa haysta beel la yiraahdo Sacad Muuse xukuumadooduna way kharash gareynaysaa waxa lagu haystaana waxa weeye waxaan wax ka bedelan baa lagu haystaa waxa la ogtay in gobolada SSC ay Soomaaliland haysato badankooda inay haysato waxa la leeyahay waa la target gareeyay ninka waxa lagu target gareynayaa waxa la leeyahay Tuke shakhsiyaasha saraakiisha ah ee deegaanada wax ka qaban karto ku jira oo deegaanadani jabhaday leeyihiin dib u xoreyn bay leeyihiin waxa loo target gareynayaa Tuke wuxuu ka mid yahay shakhsiyaasha saraakiisha ah ee nimanka ay shaqaanayeen dagaalami kara sababta loo daba socdaana waa taa kuwa lagu leenayo laascaanood ee hal door kaabul la mid yahay qofka meeshiisa naga hayo weey meeshiisa ninka iyo ragga la midka lafaha la daba wada aan jirin sababta Tuke loo haystaa waa taa sababta kalena waxa weeye lafaha la daba wada aan jirin waxa la wax meel laga keenay iyo waqti ay yihiin aan la baadhin waxaan ka waraynaa looyarada ku doodaya in lacag laalusha Somaliland ay siisay qofka ku doodayana 10 jeer oo hore in kiiskaasi uu jabay laga hari waayay Tuke waxa laalo waxa ku leeyahay oo dambiga la daba wada uu ku leeyahay sababtaas loo haysta dowladda Mareykanka waxaan leeyahay maxkamadda ama xeer ilaaliyaha hawsha gacanta ku haya haddaad Soomaali isu qabanayso Soomaali dadkan xasuuqa loo geystay 200 qof baa laga dilay laascaanood hal doorkeedii 500 qof baa kala shaaliye meegaagli hawgana lafoodi yaalaan oo dadkan SSC ah wurwur baa lagu laayay oo maartay lafoodi yaalaan haddii aad xaakimtiin Soomaaliyeed kiisas badan baa noo yaala kiisaska u diyaar garooba waxaan leenahay marka hore cidda uu u xidhan yahay ee daba socota ee ilaa iyo hadda aan ka hadhin waxaan leenahay Tuke haddaad ka hadhi weydaan albaab kale aad furasaan albaab kale yaad furasaan kuwa idinka madaxda idin ah ee madaxweynayaasha idin ah ee wasiirada idin ah ee saraakiisha idin ah dulmigii ay geysteen iyo xasuuqii ay geysteen uunba iyana maxkamad lagu keeni doonaa Soomaalidu waxay yiraahdaan qaniya ka fujisa Tuke haddaad ka hadhi weydaan ku deyn maaye Tuke waxa la yiraahdo kiiska aad u haysataan mid ka daran yaanu abaabuli waana noo soo socda waana keeni doonaa
waadna arki doontaa waqtiyada soo socda insha Allah haddii ilahayd indhihiinaan wax tusi tuka ka hadhi weyde waad arki doontaan waxaan leenahay xasuuqii ka dhacay Kalshaale dadkii lagu laayay kuwii ka soo bilaabmay 1982 ninkii ugu horeeyay SNM ay dishay maxkamad baan soo taaganaa cidii dishay kuwii amray waxa la yiraahdo muxuu ahaa saraakiishii ahaa ee madaxda u ahaana iyagana waan soo taagi doonaa haddii la haydo kuwa lagu laynayo laascaanood had iyo habeenba idinka laayay waxa laga aanu ku muujinaynaa shucuurtayada xariga tuke lagu xidhay ee xaq darrada ah taasaanu ku muujinaynaa xarigaas waa xaq darro waanu ognahay waxaanu ku ognahay annagu waxa weeye tuke dadka daba socda waanu la socnaa waanu ognahay anigu waxaan ahay dadkii xasuuqu ku dhacay duriyaan baan ahay waan fadhiyaa xabadaha ku dhacay xabadaha nima kuwa imika ku doodaya tuke ee daba socda ugu dhuftay taas waa caddahay Mareykanka hadduu xaq qaadayo oo waxa uu maxkamadda ku sheegaya xaq tahay annaba waanu arkaa ha ka qabto xaqa iyaga wax maxkamadda ee hala tiigsado iyaga bulshadanu ay isugu timi inay tusaan shucuubtooda iyo dareenkooda kuna muujiyaan in Cornel Yusuf Cabdi Cali oo ku xidhan Mareykanka uu ka madax bannaan yahay dambiga lagu soo oogay waxaa dacweynaya oo daba socda oo ilaa Canada uu moogtay Canada tagay Canada waxaa ka soo kaxeeyay oo uu ka shaqaysan kari waayay beesha reer Sheekh Isxaaq nimanka idoor loo yaqaano Cornel kaasu wixii dhibaha loo geysto waxaanu nahay dad ka aargudan kara waxaanu nahay dad awooda waxay ku sameeyeen inay ka aargutaan insha Allah ta'ala ma hooyooyinka saraakiishayada aqoon-yahankayaga askartayada waxaanu diyaar u nahay haddii maxkamadda reer Sheekh Isxaaq Sacad Muuse ay baajin waayaan oo ka soo saari waayaan Mareykanka iyo nimankaas shishe inaanu ka aargudan doono ay waa Yuusuf Maxamed Cabdilaahi Abu Ansuusri arinta Cornel Tuke meelaha ma garanaysaa qurbaha lagu maxkamadaynaya ma leeyahay waxba naga dilay anaga kuwii ka hor iyo kadib dadka ay xasuuqay bilada iyo mujaahidnimo ay kula baxeen oo halkan markaas waliba carruurtayada loo yeedhinaya leeyahay mujaahid ku awowgii dilay ku aabihii dilay ku walaalkii dilay waxa weeyaan haddaan la kala samreyn oo wixii dhacay ee hore tukana dawlad uu ka mid ahaa jabhad soo weerartay la dagaalamayo uu ka mid ahaa wixii dawladdaasi ahayd uu yahay wuxuu gaar wuxuu geystay ma jiro nin shacab oo xitaa intuu dawlad ciidanka haystay oo qabaalkiisa leynayay ku jiray ma ahayn waxa weeyaan markaa haddii beedankeeda leeyahay haddii wixii dhacay ee hore haddii beedankeeda leeyahay ha lagu samro oo afallahu amma salafa la yiraahdo oo jiilalka dambe iyo ummadda dambe loo wada tashaday haddii la diiday oo marna lagu waalanayo xabaalaha oo la leeyahay beedanka leeyahay kii daacundiray kii daad qaaday kii xabadi dishay iyo kii kale caad shayba la leeyahay xasuuq reerahaas baa geystay oo xitaa dawladda geysatay la oranayo reer baa geystay oo ninkii dawladda u shaqayn jiray la daba socdo oo maanta tukayna hor taagan yahay oo la leeyahay waa kaas warde haddaan la kala samrin dee nin waliba uu garanayaa ninka wax ka galay uu garanayaa uu la joogaa maalin walba buu hodlaanu ku soo dhaweynaa kuwii haddii badankeeda leeyahay xasuuqii uu geystay uu geed walba yaallo dadkuna saraakiil la qabsado waa leeyahay haddaad tujaar qabsataan tujaar la qabsado waa leedihiin haddaa sarkaal qabsataan sarkaal la qabsado waa leedihiin haddaa isim dhaqan qabsataan isim dhaqan la qabsado waa leedihiin oo dadka dhingada qabiil ugu kala dhufanaysaan meel la joogaba waxa weeyaan waxaanu idin leenahay dadkiina tuka daba socdow isaga gaal waa gaal oo naxariisba ka sugumayno gaal haddii badankeeda leeyahay gaal waa gacan yare waddanka joogaad weligiinba u ahaydeen waddan kama lihin
laakiin idinka dadkiina aan dhulka ku wada noolahay ku wada dhalanays wada sheeganayno wax kasta sheegto oo inaynu dad kala samray noqono wixii dhacay meel kasta ka dhaceen ama dawladda ka dhaceen ama shacab iyo deris ka dhaceen oo kala samro dadku ummadda inteeda dambe jiilasha dambe u talino u tahayno iyo inaad soo celinaysaan isbaas ninkiina laga dilaa wax dilo kii wax gubaa wax gubo kii wax qafaasho dee soo kala doorta taana tukaa kala soocaysa waa taa tukuunbay ku xidhan korneyl tuke cabdi hayaan oo ku xidhan maraykanka oo u xidhan sifo sharci darro ah ama xaq darro ah ayaan ka hadlayaa hadalkaas oo ah isaaq hal baan leeyahay iyo madaxdiisa maraykanna hal baan leeyahay isaaq hal baan leeyahayoo isaaq wuxuu dalka ku hayo iyo wixii hore uu ka geystay dalkaba waa la ogyahay malaa dadkan goboladan ku nool soo sanaag iyo cayn waxay u arkaan dad wax magarato ah oo aan iyagu saxaafadda ka hadli aqoon oo aan maxay haytoy la hadli aqoon caalamka bay u haystaan ma aha waana idinka badiyaan waana idinla ogyihiin waxaa taqaaniin iyo ka badanna waa yaqaanaani waxaa ku jirta cabsi ilaahay baa ku jirta waxa weeye meeshaad ka gashaan bay ka gelayaan tuke cabdi hayaan aar la-aan maayo sool sanaag iyo cayn ayuu ka dhashay dadkiisiina joogaa